السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan aad iyo aad baan idin salaamayaa ardayda. Waxaan idin rajeynayaa caafimaad qab dhammaantiin insha Allah. Waxaana rajeynayaa in practicalkii la sameeyey casharkii u dambeeyey. Casharkan caawana waxaynu ku baran doonaa sidii video codka uu wato aad uga tuuri lahayd una saaran lahayd cod aad adigu la rabto. Marka aynu u galno ugu horeyn qaabkii aynu videogan ugala hadhi lahayn codka oo kaliya waxaad samaynaysaa halkan kaalay ku dhufo videoga dushiisa kabacdi right click dheh midigta taabo mouse-ka markaad taabato soo soco halkan waxaa ku taala adjust audio halkana detach audio waxaad ku dhufanaysaa detach audio soo ma aragtid tan ku dhufo detach audio ka saar waad aragtaa baan filayaa imika audio xagga hoose ayuu yaalaa kabacdi waxaad samaynaysaa videoga ayaad dul imanaysaa highlight ayaad saaraysaa markaad ku dhufatid right click ayaad leedahay kabacdi waxaad samaynaysaa delete ayaad dooranaysaa waad iska tuuraysaa waayo uma baahnid kaliya waxaad u baahnayd codkiisa ayuunbu ahaa markaad intaa dhamaystirtid ayaad waxaad soo qaadanaysaa videogii kale aad u baahnayd halkii ayaad tegaysaa import kabacdi import media file adigu waad dooranaysaa ka soo qaadanaysaa balse aniga halkan uu yaalaa uma baahnid inaan soo qaato waa kan waan soo daraagaraynaya waan soo jiidayaa markaan soo jiido halkan aan keenayaaba codkaba ka fogeyn mooyaba ama in yaraan kor weer qaado waka halkaasaan dhigayaa okay baan halkaa leeyahay multimedia markaan intaa idhaahdo hoos u soo deg halkane codkii waa kan waa kii aan la hadhay kana cod buu wataa iminka aan keensaday maadaama cod wato inaan hay sidii qaabkii aan kii hore uga saaray codkiisa waan uga saaraa isaga dul tag kabacdi right click dheh kabacdi waxaad samaynaysaa detach audio laga saar audio hadaba labadii audio waa inay hoos yaalaan waana inaad kala garato waa kan magacyadoodii baa ku qoran kan Somaliland nashiideed bahayd kan kale markaa waxa weeye waa kii la socday madaxweynaha codkii madaxweynaha safarkiisa la socday right click dabeetana waad iska saaraysaa kabacdi markaad iska saartid kor baad u baxaysaa haddaad doontid waad soo qaadi kartaa codka waad u keeni kartaa dhib male laakiin wax micno weyn ma sameynayso haddaad doontid videoga soo dejinaysaa waa adiga keenay dhag way isku ag dhegan yihiin markaa waxaad samaynaysaa imika dhegeyso haddaba Somaliland biladuna nuhibbuha okay halkaas ayaad ku joojinaysaa marka halkaa ku joojisay waxaad samayn kartaa inaad audio jarjarto soo videoga ma jarjarayn audio-hana waxaan ku tusay qaabkaad u jarayso ee video kaama yahay audio waa kan dooro ka doonaysa inaad jarto un dooro adigu saasaan u doortay markaan doorto waan soo jiidayaa drag baan leeyahay intaan doonay inaan ka jarto codkan ka jarto imika codka ay highlight karaysanoo go'aya markaa maqaskayga baan iska dul tagayaa waan ku dhufanaya wuu go'an yahay imika u fiirso wakaa wuu go'an soo ma kan ku dhufo delete iska dheh bas intaa kaliya ayaa ku soo dhacay codku intaas uu ahaanayaa وجيشنا باسل لا يخشى عدوه يردعه في الحروب وجيشنا وكاوا مسمك واي codkii intii aad ka dhigatay buu ku soo baxayay bas markaa waxaad samaynaysaa intii adigu doonaysid ayaad ka dhiganaysaa halkaas aynu kaga baxaynaa audio-ha qaabkii videoga looga hadhayay ka doonaysid aad u gashanaysay okay waxaan idinku darayaa idin raacinayaa qaabka aad u save garaysanayso videogaaga imika videogii marka uu sidan yahay waxaan tagay halka export waad ku dhufani marka aad ku dhufato optionadan uu ku soo saarayaa resolutionkiisa ma intan aad u dayni miyaad wax ka bedeli waayo size-kiisu imika waxa weeye 281 MB halkan setting-ka ku dhufo halkan good kaalay good ku dhufo marka aad ku dhufatid waxaad imanaysaa resolution-ka waa kan resolution-ka ku dhufo waxaad ka dhigataa 1280 ka 720 ga ka dhigo majority ku dhufo
markaad intaa ku dhufatid waxaad kaloo samaynaysaa halkan bitrate kan ayaad ku dhufanaysaa iska yaraynaysaa 2000 ka dhig ku dhufo ka bacdi markaad intaa dhameysid okay dheh markaad okay tiraahdo wakaa uu yaraaday waa 118 MB buu ina yiri megabyte waad ka sii yarayn kartaa hadda doonto halkan aad rate-ka bitrate ka ayaad 1000 ka dhigi kartaa uu ka sii yaraanayaa markaad 1000 ka dhigto 64 MB gebigiisba noqdayba samaynayna export baad ku dhufanaysaa markaad intaa iska soo dhameysid haddii aad doonayso in magac ka bedeshan halka name ka u bixiso adigu aad doonayso anigu name kan u bixinayaa waxaan leeyahay test baan leeyahay 40 baan ka tagay test for save markaad magaciisa aad ku qoranaysaa aad ku qorato ayaad export oranaysaa waka ka bacdi waka wada waqti badan qaadan maayo halkan wuxuu kugu yiri ellipse time waa waqtiga ellipse-ka kan kalena waa time remaining kii waa inta ka hadhay kana waa inta uu qaatay ee tagtay ellipse time waqtiga tagay marka boss dad oranayso waka dad cancel oranaysana waad raacsan kartaa sida marka kugu dhamaadana wuxuu kugu oranayaa adigu dhawaaq qirb ku soo diray ka bacdi final target ku dhufanaysaa halkii geeyo yaalay goobtii ku yaalay wad helaysaa hadii kale waxaad ku baari kartaa magacii intaad search inta tagto ayaad magacii ku baaraysaa ka bacdi soo helaysaa fiidiyadana save garaysta hadhow anigu assignment idin diraya assignment-adan idin diro markaad imika kanaad caawa sameysay save garayso hadhow waad soo diri kartaa waana ka eegi karaa tan result-ga kugu siin karaa aad iyo aad baan idin salaamayaa